dhalinyaro haddaa kiyunsi hata aa ka shaqaystaan maaragtay waa shaqo qurux badan. haddaa harqaan tushaan waa shaqo qurux badan. haddaa kabaha tushaan waa shaqo qurux badan. war haddaa baabuurta tirtirtaan waa shaqo qurux badan. haddaa xamaali noqotaan waa shaqo qurux badan. haddii aad maanta yaa istabaalada aad soo xaqtaan waa shaqo qurux badan. laakiin waxaa ku xun adigoo dhulkaaga shaqo ay tuban tahay xitaa wareejiyo aan noqon karto. wallahi in aad dul shashay intaad aado aad dhahdo aniga dhankaas ka shaqaysanaa war dollar aad gacanta kusoo qabsato ama dollar aad ku shaqayso xukuma tarayniyo. dollarku waa 12,000 mar 10,000 waxba kuma goynayo. ididka aad 200 ku helayso oo dhulkaaga aad kaga shaqaysanaysa aa ka qurux badan taas. marka in maanta intaad dhulkaada ka tagto meel aan laga aqaanin aad tagto oo lagu walwalo reerkaaga ku walwalaan waxaa ka wanaagsan adigoo dhulkaaga iska joogto shaqo la'aan ahaato. dhalinyarada aan la hadlayaa ka jooga wadamada aad ka baxaysaan wadanka aad ka baxaysaan war sharci waa leedihiin yaa sharcigiina ku shaqaysta. iskuulaadka aad barateen waan fahansanahay ama waan dareensanahay in shaqooyin ay ka jiraan dhulka aan joogno qaasatan Dadaab shaqo kama jirto. dhalinyarada badan waxay isku hawshaa ama isku hawleen ama isku mashquuliyeen muqaadaraadka. muqaadaraadku dad baa wax isku hilmaamsiinaya duruufo un baa cunsiiyeen iyadana ma ahan wax xun muqaadaraadka. haddii aad leedahay hanti ama haddii aad shaqo yar hayso lacag kugu filan aad haysato reerkiina aad wax ka siin karto adna aad ku qiili karto taasi ma xumo way wanaagsan tahay. laakiin waxaa ku xun in lacaga badan lagugu qasaariyo baasaboor lagu jiro diyaarad lagaa bixiyo wadan aadan garanayn aad gasho haddana dad aadan garanayn luqunta aad u gasho oo haddana lacag madax furasho kool lagugu xiro adiga. waa wax lagu xumaado in reerkaaga aad murjiso. war reerkaaga ha murjinin reerkiina ha murjinin. walaalaa kula dhashteen hooyaa ku dhashay aabbaa leedahay dad kaa fikiro asxaabaad leedahay inaad fogaato ood ka fogaato maxaa kugu sababay? ayaga noloshii ku nool yihiin la noolow. saaxiibkaa tegay yaa waxba ha ka daba tegin. saaxiibkaa tegay waxba kuuma qabanayo dhulkaaga nabade dhulkaaga barwaaqe beer falo beerta hataa waa barwaaqo. markaa saaxiibayaal waa arrin lagu xumaado maanta midan ani aan maqlay. shafaac jinool inuu maqan yahayna waa maqlay. in haddana uu fandhasaa ku darsamo waa mid haddana laga sii naxo oo argagax ah. dad badanaa naga maqan sababtay ku maqan yihiin lama aqaano. laakiin waxaa la ogyahay oo keliya in mar walba la hadalhayo. marka asxaabta waa idin salaamayaa. qofka u jeedaan shakal waay iska raaxaysanayaa. kinyunsiga iska dhex joognaa. nuur cadda kinyunsigiisa nuurkey kinyunsigiisa iska joognaa. nuurkeyna wakaa u jeedaan nuurkey cadde xaggu iskaga hadlaa telefoonu ka baashaalaya. shukaansi Dadaab joogaa lagu jiraa ku dhaha iska shukaansada gabdhaha wadankiinan iska jooga. haddii aad u baahataan guur asxaabta dadka ku dhaqan dhulkan yaa ku garab qabanaya. mar haddaa naag guursatana shaqo laguma waynayo meel baa lagu yeelaa ilaa cid baa ku sugaysaa. marka asxaabi ani waxaa idin leeyahay dhalinyaro tahriibka joojiyadii bixistaa bixisana joojiya. dhulkiina jooga yaa dhulkiina jooga lacagaha ku jiraan kasoo saara isagaa lacag badan dhex taallaaye. maxaa idinku kalif inaad dhulkala tagtaan oo lacag u raadsataan? cunno hooyadiin tii ay kariso macaanka badeed xaa uga tegaysaan yaa ilina iga imaato laakiin marinina iga imaato idinka daraadina iga imaanaysaa. waa idin jecelahay iljibiskaasna ma aan mid xun jecel idin qawaya. shakal hadal ma ku darsanayniyo ala asxaabta waxaan leeyahay taariikh farada badan iska daayaan magaaladooda shaqo tuuran xarada UN ka barwaba ka watal iyo keenso wuxuu noqdaa way tuurinayeen. ha iska daayaan asxaabtan farada badan oo macnaha siqayso anaga daayaan taariikhda 24 hours hooy aabe way calaacalayaan wiilkayga saan wiilkayga dhiban maxaa laga sheegaa masaajidaha. anaga daayaan asxaabtan aan jecelnahay macnaha bixistan ay baxayaan baxistay baxaan anaga daayaan. shakalna waa maqashaan
iska kabarweysta kabar wax xalaal iska kabarweysta ya ciao waa idin jecelnahay bye bye